بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku jirnay buugga strategic managementiga ahaa baan ku jirnay jabtarkii afraad baynu isla aragnay waxaan rabnaa caawa insha allah inaan isla fiirino jabtarka shanaad vision and mission statement vision statementiga iyo mission statementiga kambaniyaasha sida loo hagaajiyo kambani markaad samayso su-aasha ugu horeysa waxay tahay kambanigan ujeedada aada u samaysay waa maxay su-aasha labaad waxay tahay kambanigan markaa sameynaysay maxaad islahayd wuu gaari doonaa yacni ilaa iyo heer intee la eg buu baad rajeynaysay inuu gaaro labadaba waxaa la rabaa jawaabtooda inay ku jirto fishinka iyo mishinka mishinka waxaa la rabaa inuu ku jiro maxaa yani ujeedka aan u samaysanay waa maxay fishinkana inuu ku jiro meesha aan rabnay inaan gaarno jabtaradii hore mid kamid aan kusoo aragnay jabtarkii labaad baa waxaan kusoo aragnay fishinka iyo mishinka sida loo sameeyo yani waxa macnahooda uu yahay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan dhex galno deeply sidee baa loo sameeyaa benefits of having clear mission and vision statement maxay tahay faa-iidada ay leedahay kambaniga inuu yeesho mission statement ujeedada kambaniga loo aasaasay oo cad markaan macaamiisha usoo bandhigno ama vision aragtideena guud ee kambaniga oo cad oo clear ah markaan dadka usoo bandhigno maxay noo faa-iideyneysaa waxay noo faa-iideyneysaa inaan horta marka ugu horeysa intaanba macaamiisha la gaarin shaqaalihii iyo maamulkiiba waxay u faa-iideyneysaa in aanu isla fahno kambaniga meeshuu ku socdo yacni ujeedka uu kambaniga u socdo iyo meesha uu ku socdo waxay sidoo kaleeto fududeysaa in kambaniga markii la rabo in strategic planning activity la sameeyo waa simple tusaalehaan internal assessment ama external assessment vision iyo mission markaa leenahay way noo fududahay markaa establishment markaa yani hirgelinayna objectiveska shaqo walba objectiveska markaa hirgelinayna way noo fududahay markaa istaraatiijiyadda development garayna way noo fududahay markii dariiqyadii aan jabtarkii shanaad kusoo aragnay aan dooranayno oo aan direction sameynayno markii aan rabno inaan sameyno direction way noo fududahay maxaa yeelay clear mission and clear vision statement baan leenahay haddii mission statementiga yani ujeedka kambaniga iyo aragtida guud ee kambaniga iyo mustaqbalka wax laga leeyahay hadday noo fududaato waxaa noo fududaanaysa inaan dariiq helno dariiq baan helaynaa direction baan helaynaa waxaa sidoo kale noo fududaanaysa inaan fahano yani yaa ugu weyn ee aan barnaamijkeena mas-uuliyaddiisa aan iska saarnaa yacni stakeholderska noogu culus waa kuwe baan fahmaynaa sidoo kaleeto waxay noo fududeyneysaa in managerska ay kala weecdaan divergent kala weecasho xagga fikirka iyo xagga aragtida iyo xagga wax soo saarka iyo dhammaan way kala weecanayaan haddaysan lahayn vision iyo mission statement oo sax ah waxaa sidoo kale rabaa expectationka maxaa la rajeynayaa maxay kambaniga noqon doontaa maamulka iyo shaqaalaha waa inay fishaan kambaniga wuxuu noqon doono waa inay fishaan wax laga sugayo sidoo kaleeto stakeholderska si lamida waa inay u fishaan maxaa mustaqbalka rabnaa inaan qabano maxaa mustaqbalka gaaraynaa waxaa sidoo kaleeto qodobka 8aad ay tahay project unorganized in shaqada la qabanayo ay noqoto shaqo organized ah in kambaniga uu motivationka waxaa la yidhaahdaa dhiiragashan kambaniga inuu dhiiragashan yahay waxaa la rabaa wax soo saarka inuu kor u kaco organizational performancega inuu noqdo high sidee loo gaari karaa marka objective iyo vision iyo mission cad markii la haysta lagu gaari karaa sidoo kaleeto achieve synergy among all managers and employee synergy waxaa la yidhaahdaa energy adiga energy baa leedahay anigana energy baan leeyahay saaxiibka energy buu leeyahay saaxiibada energy bay leedahay tusaale ahaan aniga iyo adiga energygeena marka adiga energygaaga iyo aniga energygayga la isku daro energy square lama dhahayo waxaa la dhahayaa synergy marka waa 1+1 haddii la sameeyo energygaaga iyo energygayga haddii la isku daro 3 qof waxay qaban karaan baan qaban karnaa marka in la helo energyga isku darka energyga in la helo shaqaalihii iyo maamulkii
do you know ma la socotaa a powerful vision statement should stretch waxaa laga soo saaraa powerful visionka macquulka ah oo soo jiidashada leh waxa laga soo saaro waxay tahay expectation and inspiration helping you jump out of your comfort zone inaad ka soo saarto meesha aad rajaynaysid inaad gaarto oo ah meel aadan ku jacsanayn yani comfortable ku ahayn oo aadan yani ka baxsan meesha comfortable-ka ku ahayd mission statementiga fiican oo quruxda badanna waxa lagu cadeeyaa utility of a firm's product to its customers haddaan idin soo gaarsiino adeega aan idin hayno maxay idin tiri kartaa yani maxaaba u joognaa annaga why do we exist one bay noqonaysaa waa hagaag waxaan rabnaa halkan inaan ku eegno mission statementiga oo kale sidee laga dhigi karaa waxa ugu horeeya oo laga hadlayo waxay tahay mission statementiga waxaan keenay dhar qurux badan waxaan keenay dhar maxaan ku yiraahdaa kula eg waxaan keenay bay dadka yiraahdaan laakiin lama rabo clothes inaa ka hadashid waxaa la rabaa aniga yani muuqaalkayga siduu u qurux badnaanaya inaad ka hadashid markaa ka hadlaysa kabaho kaleeto kabaha qofka inaad u sheegtid maaha waxaa la rabaa kabahan hadduu xirto muxuu ka heli karaa yani inaad tirahdid waa ku raaxaysanaysaa socodkooda kaba aad ku raaxaysatid socodkooda oo kale kaba qurux badan ma aha kaba aad ku raaxa yani the end userka qofka ugu dambeeya adeegsanaya muxuu ka helaya waa la rabaa guri hadday tahay oo kaleeto waxaan ku haynaa guri aada u qurux badan ha oran waxaad tirahdaa waxaan ku haynaa guri securitygiisa uu fiican yahay oo kale waxaad dhihi kartaa waxaan ku haynaa guri marka ku nooshahay yani comfortable ah aada raaxa dareemaysid waxaan ku haynaa guri uu ka dhisan yahay deegaan nadiif ah haddana degan oo aan buuqii qeelo lahayn and so on markii waxaa la rabaa waxa aad keenaysid oo aad rabto dadka inaad u sheegto ma aha inaad wixii keliya u ballan qaado tusaale ahaan HR Soomaaliya oo kaleeto fishinkeeda ma aha inay ku tiraahdo waxaan ku baraynaa diblomaan ku haynaa waxyaalaha annaga fishinka nooca waxaa ka mid ah waxaan abuurnaa dad HR-ka yaqaan waxaana u abuurnaa iyagoo leh maskax hal abuur leh yacni qofka annaga aan gacanta ku qabano arday noo noqda waxaan ka dhignaa qof HR professional ah marka waxaan abuurnaa adduunka o dhan ba waxaan u abuurnaa HR professional dad ah haddana leh maskax hal abuur leh marka wixii aad sameynaysay ujeedkii aad sameynaysay waa la rabaa inaad keento waa hagaag mission statementiga waxaan rabaa inaad eegtid vision statementiga sidoo kaleeto inaad eegtid dhammaan waa example waa kambaniyaal mission statementiga ay ku xiran tahay kambaniyaashan mission statementiga oo kaleeto maxaan ka qaadanaa tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan qaadano Johnny's and Johnny's oo kaleeto baby lotionka we believe our first responsibility is to the doctors waxaan aaminsannahay mas-uuliyadda missionka way waxaan aaminsannahay mas-uuliyadda ugu horeysa inay tahay dhakhaatiirta mas-uuliyadda ugu horeysa inay tahay nersiga dadka shaqada haya oo maxaan ku dhaha kalkaaliyaasha ah mas-uuliyaddeena ugu horeysa waa dadka xanuunsan mas-uuliyaddeena ugu horeysa waa hooyooyinka dhammaan dadkaas waxaan u soo saarnay adeegyo iyo qalab ay adeegsadaan Johnson and Johnson company baa iskale adiga marka waxaa lagaa rabaa mission and vision statement dhammaystiran tusaalaan ardayda markii ayaantii dhaweed aan exam visionka iyo missionka aan uga dhignay example aan uga dhignay assignment uga dhignay example ahaan waxay keeneen missionno iyo visionno aada u qurux badan runtii kaasaa marka qofka waxaa la rabaa in mission iyo vision statementigiisa uu noqdo mid qurux badan casharkeena caawa halkaasaan ku ekaysiinaynaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu